kulankan lagu soo bandhigayay natiijada ka soo baxday barnaamijkii tirakoobka shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan oo matalayay dhammaan hay'adaha dowladda waxaana inta uu socday kulankaasi mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay la guddoonsiiyay kaararka cusub ee ay yeelan doonaan shaqaalaha dowladda Puntland agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha oo ahayd mas'uulka ugu sareeya guddiga dowladda Puntland ay u xil saartay shaqadan ayaa u mahad celiyay dhammaan intii ka qayb qaadatay shaqadii tirakoobka shaqaalaha rayidka ee dowladda Puntland anigu maxaa haytay mahad celintaas uun way doorkaygu mas'uuliyiintiga sarreeysa fadhida iyaga ka hadli doona doorka siyaasadda iyo reformka iyo wixii kaga aadanaa qolada BEG oo maxaa haytay international company ah Michael iyo Philip iyo teamkiisa waa u mahad celinaya. I need to say thank you BEG team sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo BCU oo iyaguna logisticada si fiican noogala waday mashruuca qolada xiriirka oo qaabilsan madaxtooyada xafiiskoodu yahay oo aad iyo aad noola shaqeeyay intii shaqadaas socotayna meel walba aan istaagaynay iyo maxaa ay shaqo badan nala qabtay TV-ga dowladda Puntland door muhiim ka qaatay filimada aad aragtaan halkan muxuu ahaaytay lagu soo bandhigayo iyo xogta ilaa maalinta bilowga ilaa dhamaadka la keydiyay TV-ga dowladda Puntland baa u sababaha iyo madaxda ka shaqeynayay Daahir iyo Qoslaaye oo hadda halkan horteeda taagan agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda Puntland Cabdinaasir Biixi Soofe ayaa sheegay in dowladda Puntland ay ka go'an tahay daryeelida shaqaalaheeda rayidka oo barnaamijkani qayb ka ahaa shaqaalaha طبعا حلو تلكوبهيا وحلو تلكوبهيا لفدور بي waxay u yihiin jiritaankeena iyo dawladnimadeena shaqaaluhu ayaga dhabar wala fadhabar u ah runtiina waxa weeye shaqaalaha Puntland waxay muusiyeen dhabar adeeg oo ay muddo ku soo shaqeeyeen duruufo adag iyadoo lagu soo shaqeeyay bay haddana waxay adeegsadeen aqoontooda iyo xirfadooda waxaan rabnaa marka shaqaalihi noocaas ah oo tayada lahaa inuu noqdo shaqaalaha Puntland dowladda Puntland waxa ka go'an inaan dhisno shaqaale tayale xirfadaysan marwalbana laga shaqeeyo sidii loo korin lahaa aqoontooda xirfadeed iyo shaqo in kor loo qaado wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa sheegay in barnaamijkani uu qayb ka ahaa dib u habaynta hay'adaha dowladda si wanaagsan loogu guuleystay haybadda dawladnimadu waxay tahay systemiska habka lagu shaqeynayo oo dawladdaas ay ku shaqeynayso iyo qaabka loo wada shaqeynayo oo kala sareynta nidaamkaas sida uu yahay dhabtii waxa farxad ii ah oo maanta kulankan aad iyo aad ugu bogaadinayaa dawladda Puntland oo 18 sano 19 sano sanadkii 20aad hadda aan ku soo shaqeyno dhammaan tallaabooyinka dawladnimada aan u qaadnay gaar ahaan arrintan maanta aan halka u fadhino inay tahay arrin mustaqbalka dawladnimadeeda tiir fiican u dhigaysa asaas wanaagsanna ah ummadda Puntland shaqaalaheeda iyo dawladda Puntland aan isleeyahay waxay noqon doontaa waxay ku noolaadaan oo ina tusita shaatiga dawladnimada inaan gashanahay mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Puntland ayaa u mahad celiyay dhammaan maamulada 9 gobol ee Puntland iyo shaqaalaha rayidka ee ka howlgala guud ahaan degmooyinka Puntland gabagabada tirakoobka wajiga labaad ee shaqaalaha Puntland ayaa ka mid noqonaya guulihii ugu waaweynaa ee la gaaray 2 sano oo la soo dhaafay waana markii ugu horeysay ee barnaamij noocan oo kala ah laga hirgelinayo Soomaaliya tan iyo burburkii kadib محمد سعيد قصلاية Puntland TV Garowe.